Waxaa bilaabatay xiisada koowaad ee dugsigan barayaasha, ardayda, maamulka iyo howlwadeennada kale. Waxa kaliya oo ay isku fahmi karaan waa luuqadda tilmaamta gacanta. 254 arday oo 99 ka mid ah ay yihiin gabdho oo ku jira fasalada hoose, dhexe iyo sare ayaa wax ka barta dugsiga Somali Deaf School tan iyo kolkii la aasaasay. Dugsigan dowliga ah sanadkii 2007 waa yaree tirada ardayda xaadirta fasalada sabab la xiriirta waalidiinta dhalay ubadka maqalka la oo aan si buuxda u aaminsanayn in ay wax baran karaan caruurtaani. Arday sanadkii soo dhaafay nala joogay sanadkii hada noo bilaw September gabar ka hartay iskoolka 3 gabdhood ka jirto 3 gabdhood waalidiintooda waa la xiriirnay waa wada hadalnay yani gabdhaas in oo ka har sababta ugu weyn waxay ahayd inay xilligii qaangaarka soo gaarin. Zakariya Saciid Maxamed waxa uu ku jiraa fasalka 6aad ee dugsiga dhexe. Waxa uu ku faraxsan yahay inuu helo fursad waxbarasho. Waxa uu rajaynayaa in uu noqdo bare, taasi oo barashadeeda ay ku horgudban yihiin caqabado. Khalifa Cartan Shuuriye oo ka mid ah waalidiinta dugsiga waxa ay sharxaysaa isbedelka ay ku aragtay gabadheeda kadib markii ay ku dartay dugsiga. Salaada markaan tukano, salaada la tukanayo toosnaa dhinaceeda ka tukanaysa, dharka ay ku tukanaysa taa way ilaashanaysaa, nijaasta way iska ilaalinaysaa hadda. Waxyaalaha aan iskuulka ka faa'iiday ka mid waa si loo tukado oo inaan barnacta isku dayno waa la bari waay. Sida ku xusan xogta hay'adda dhagoolayaasha dunida, in ka badan 70 milyan oo qof oo maqalka naafaka ah ayaa ku nool caalamka, kuwaasi oo adeegsada in ka badan 300 oo luuqad oo kala jaad ah. Salma Cusmaan waa tarjume luuqadda tilmaamta. Waxa ay tilmaamaysaa falcelinta ay kala kulanto bulshada. Wallaahi dad basi u qaataan. Dadna ma fahansano oo waxay isleeyihiin maxaa la dhahaa waxaan maxay tahay gabadhu waa la rabtaa maxaa la dhahaa hadda waxaan wax jiro miya sidaan hadal miya qaabkee waxa la isku xirxiraa. Dadna way fahansan yihiin oo waxaan in luqad dad ay leeyihiin maxaa la dhahaa way fahmayaan. Gudaha dalka waxaa adag helida bare xirfad u leh waxbarista dadka maqalka la. Taasi waxay ku qasabtay maamulka dugsigan in ay tababaraan hadba macalinka ay helaan, sida ay bilan u sheegtay Xamdi Maxamed Maxamed oo ah maamulaha iskuulkan. Macad u tababarno inta dadka sanad guushka luuqad tilmaanta soo baro iskoolka keeni kara ma jiraan. Mar waliba macalinka noo soo baro anaga tababar siino kadib iskoolka saas ugu biira waxbarashadii ardayda saas uu ku sii wada. Khadiija Maxamed Xasan waxa ay ku jirtaa fasalka 4aad ee dugsiga sare. Waxay ii sheegtay in tan iyo markii ay bilowday waxbarashada habdhaqanka ay kula dhaqmaan bulshada uu soo hagaagayo. Waxayse ka walwalsan tahay waxbarashadeeda jaamacadeed. Si la mid ah Khadiija Maxamed, ardayda la baahida ah waxay wajahayaan walaac ku aadan halka ay ka heli doonaan waxbarasho jaamacadeed oo daboosha baahidooda. Saadiya Nuur, Bilan Media, Muqdisho.